Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo Kurdiyiinta kumaandoosta ayaa weerar ay ku qaadeen xabsi ay maamulaan kooxda Daacish ee Ciraaq kusoo daayay maxaabiis. Ilaa 70 maxaabiis ayaa la soo daayay. Dhowr ciidan Daacish ayaa lagu dilay, qaarna la qabtay. Hal askari oo Mareykan ah ayaa goobta ku dhintay. Pentagon-ka ayaa sheegay in weerarka la qaaday kadib markii sirdoonka ay ogaadeen in dadka la haysto la dili lahaa. Dhimashada askariga Mareykanka ayaa ah khasaarihii ugu horeeyay ee Mareykanka soo gaara tan iyo intii ay bilaabeen weerarka looga soo horjeedo ururka Daacish. Mareykanka ayaa si adag loogu cambaareeyay booqashada madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu ku tagay magaalada Moscow. Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay in ay u fidiyeen waxa ay ugu yeereen soo dhaweynta rooga cas. Afhayeen u hadlay Mareykanka oo lagu magacaabo Eric Scalise waxa uu ku tilmaamay in casuumadda Moscow ay u fidisay Mr. Assad inay carqalad ku tahay raadinta in xal siyaasadeed laga gaaro arrinta Suuriya. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay taageerada ballaaran ee militari ee Ruushka uu siinayo maamulka Assad. Tallaabadaasi waxa ay ku tilmaameen inay dhiirigelinayso dowladda Bashar al-Assad ayna sii dheereynayso xilliga dagaalka sokeeye iyo wax loogu yeeray kordhinta argagixisada. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ruushka Mr. Putin waxa uu dalalka diidan maamulka Assad ku wargeliyay qodobada ay ka wada hadleen maalin kadib booqashadii Moscow. Mr. Putin waxa uu la hadlay boqor Salmaanka waddanka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan oo labaduba ay aad u caawiyaan mucaaradka la dagaalamaya Mr. Assad. Mr. Assad wuxuu Ruushka u gudbiyay mahadnaq ballaaran oo ku aadan fargelinta uu waddanka Ruushka ku sameeyay duqeynta waddanka Suuriya. Xukuumadda Ottawa ayaa waxay soo afjaraysaa inay ka mid ahaato isbahaysiga uu Mareykanka hogaaminayo ee cirka ka garaacaya ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Justin Trudeau, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Canada oo ballan qaaday in isbedelo waaweyn uu la imaan doono, ayaa Mareykanka ku wargeliyay in Canada soo afjarayso ka mid ahaanshaheeda isbahaysiga la dagaalamaya ururka Daacish. Ra'iisul wasaaraha oo khadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama markii uu xilka ku guuleystay ayaa ku wargeliyay inaanay Canada ka sii qayb qaadan doonin dagaalka Daacish. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu madaxweyne Obama u sheegay inay Canada diyaar u tahay kala qayb qaadashada tababarada ciidanka la dagaalamaya Daacish iyo arrimaha bini'aadanimo. Isagoo taageerihiisa kula hadlayay magaalada Ottawa ayaa wuxuu bidhaamiyay in saaxiibada caalamka ee Canada aanay jeclaysan in xilka looga adkaado xisbiga ra'iisul wasaare Stephen Harper. Justin Trudeau oo waday 11 toddobaad olole ah ayaa wuxuu codadka xoogan ku kasbaday ballanqaadkiisii ahaa in isbedelo waaweyn ay xukuumaddiisa la imaan doonto. Trudeau ayaa sanadan wacdar weyn ka dhigay doorashada dalkaasi. Trudeau oo 43 sano jir ah ayaa waxaa dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee Canada Pierre Trudeau. Hooyo arxan daran oo cunugeeda oo mandheertii laga jarin soo tuurtay. Muuqaal laga argagaxo oo muujinaya cunug yar oo mandheertii uu ku dhashay hooyadii oo arxan daran bacmadow ku soo riday soona dhigtay wadada. Muuqaalkan naxdinta badan ayaa muujinaya rag iyo dumar oo u gurmanaya cunug yar oo bacmadow lagu soo riday lana soo dhigay wado isagoo aan laga jarin mandheertii iyo xundurtii ay hooyadii ku dhashay. Waxaa la qiyaasay in ay dhashay cunugan la badbaadiyay hooyo Filibiinees ah oo dareenkii hooyanimo aanan qabin. Ma aha markii ugu horeysay ilmo bannaan la soo dhigo, laakiin waa mid ku cusub in iyadoo mandheertii ama xuduntii cunug yar ku taala bannaanka la soo dhigo. Maxamuud Xasan Cumar Tafare, Royal TV, Bahrain.